السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد السلامة أمد الصوماليد مeel kasta ee dunida daafeeda ka joogtaan. Waa Xasan oo jooga waddanka Poland. Waxaan rabaa maanta inaan wax yar ka hadlo xaaladihii ugu dambeeyay waddankan ugu dhagan ee Ukraine colaaduhu ka jiraan iyo dadkii ka soo baxay ummadii Ilaahay oo ka soo qaxday meeshaas carar lugta soo saartay waddada iyo waxyaabihii Soomaalida dadka Soomaaliyeed ee meeshaas soo marayay iyo xaaladaha hadda sida ay yihiin. Horta si guud waddanka weli sidii waaye colaadda way socotaa. Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inaan waxba dadkeena Soomaaliyeed ka soo gaarin meeshaas. Dadku weli way soo qaxayaan, dadka waddanka u dhashay iyo ajaanibtii la nooleed intaba way soo qaxayaan. Ajaanibtaas waxaa ku jira dad Soomaaliyeed oo aad u fara badan. Dadku weli way soo galayaan waddanka walow hadda aysan sidii horeba u badnayn oo ay jiraan isdhim. Waxaan rajaynayaa dadka intoodii badnayd inay soo gudbeen oo waddamadan u soo galeen oo si nabada meelaha ku soo gaareen. Laakiin sida maqalka ugu ah waxaa jiro dad badan oo Soomaali ah oo ku sugan waddanka Ukraine gudihiisa ilaa haddana aan haysan meel ay ka baxaan. Sidoo kale waxaan jirin dadkaas totally meel lagala xiriiro. Wax xiriira ma lahan. Waxaa kaloo jiro dad soo baxay oo iyaguna waddada ku soo jira weli. Dadku maalin kasta way soo baxaan, waddaday ku soo jiraan, qaar wuu soo gudbaa, qaar meel dhexe weli soo marayaan. Dhammaantoodna waxaan u rajaynaynaa inay si nabad ah ku soo gaaraan. Annagoo u taagannahay inaan caawino Foundation for Somalia iyo foundationno kale oo garabsanayo sidii diyaar ugu yihiin inay dadka soo dhaweeyaan oo caawiyaan. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Poland sidii weli ugu taagan tahay. Dadku waa dadkeennii meel kasta ay joogaan. Si guud ayaan ugu taagannahay. Qof kasta oo waddankaas ka soo gala maaha Soomaali oo keliya waxaa diyaar u nahay in dadka si isku mid ah loo soo dhaweeyo, si isku mid ah loo caawiyo. Asa human ahaan intaas marka uu gudbo taasna waxaan rabaa in ayadana meeshaan idinka dhaho oo idinka faro fariin ah. Saaxiibayaalow dadku way soo wada cararayaan, dadku way wada dhiban yihiin. Dadku waa dad masaakiin ah, colaad markay meel ka dhacdana dad kale ma taqaano. Kana waddanka u dhashay iyo kana waddanka u dhalan ma taqaano. Dadku dhib badan ay soo mareen, lugu soo galeen, wadda soo galeen, wada rafaadsan yihiin. Horta marka hore qof kasta oo idinka mid ah dadkaas dhibaatada ka soo cararay ee meeshaas ka yimaada si isku mid ah u soo dhaweeyo, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ee meeshaas ka soo cararayso. Waa dad aad u jilicsan. Waxaan codsanayaa qof kasta ee la kulma ama waddanka Poland ha joogo ama waddamada kale dadka u gudba ka mid noqdeen oo meelahaas isku arkeen ha la caawiyo, ha loo istaago, ha la garab siiyo. Waxaan kaloo rabaa in ayadana wax yar ka dhaho. Waxaa jiro ururo fara badan iyo jaaliyado Soomaaliyeed ee waddamada kale Yurub ku sugan oo iyaguna si buuxda u garab taagan jaaliyadda Soomaaliyeed ee Poland iyo Foundation for Somalia. Ayagana way mahadsan yihiin. Maalin kastana wixii xog nagu soo kulma, wixii xog nagu soo kordha way idinla soo socodsiin doonaa insha Allah. Intaas ayaan ka tagay maanta. Intaas oo kala dambeysay dadku weli way soo socdaan, waddadii ku soo jiraan maalin walba iyo xaaladdu sida ay tahayna waa idinka dabageyn doonaa. Ilaa hadda alxamdulillah wax dhintay iyo wax dhaawac Ilaahay nooma soo gaarsiinin. Ilaahayna ummadda Soomaaliyeed dhib ha ka haayo meel kasta ay joogaan. Idinkana waa mahadsantihiin. Fadlan muuqaalka daawatay noo saar like, kanaalkana noogu share garee barahiina bulshada, subscribe-na noo saara. Waa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.